داودي الناشونال انت ان ناشونال انترناشونال نيوز انا كبخين اصحابي waxaan rabaa su'aalo badan oo runtii na soo gaaro ku saabsan lacagtii ay dawladda ay dhiibaysay oo 300 aheedo dad inta badan iskaga yeerdirsadeen culayska uu kaga yeerdagay su'aalahan waxa ay nooga imaanayaan dad badan oo na weydiinaya war lacagtii intee ku dambeysay lacagta halkan anaga kuma hayno lacagtan waa war la soo gali anagana waa inaan idin soo gudbinaa maalinta la yiraahdo lacag baa la hayaa waa soo sheegnaa waxaan dhahay war la socda dadoo qof kasta waa inaad akoonkiin aad eegtaan in yar hal idin soo tuuray xitaa wili ma arkin intaasoo xiligi covid ka aan ka hadli jiray lacagta failooga oo dadka lacag fiican loo soo shubi jiray aan ka hadli jiray lacagaha kale ee dhalinyarada dadka loo soo diray day wili ma arkin qof Soomaaliyeed war ninkiisaan u qeylinayo maalin kasta lacagtana loo soo diray war ninki 50 bi xitaa u diray dama qashan de waxaan rabaa hal qof oo gees intuu iska soo dhigiraado war hay Saalim Dhooro inta aqeelinaysay inta soo lacagaaba aan helay war ninkiyo 50 bigan at least ko bi ah ku gado ma jiro ولين تياس كتاجنا وحن فيلا يخف إدد إذا كم ذا هالخير أنا معلوم من سعودية دنا ورني كان سالم دور ساعة وقيلنا معلوم كستو لقيادة العجاها كجر تسوشيء جاي ماركتي at least 50 بي وحكي اللي موجودنا 50 بي كل يصدره إنه هذا وركي ورب مركز بنفد بوكسو شيء كاي هاوسنك بوكسو كاي مالها نلقى حرها بقى يعني كسو شيء وحن لا جو هاوسنك أنت سالجرات صدور ماشي أنا عير لقى ديبو هلا دونتو ورميشان أبرنتشيب كجرت عرورت هلا وده هالكاس هلاقي ورداد هويته حرقان بعدين هيا تي برفونك جدي سبحانه وربرفونك قيميس يرجيبي دتك كئيب ورأنيك أنت سميناي ده وحن لا هي قف كلية ومركز إيرا ده ورنيكي سالم دورها ور 50 بي أو صدقه ودرنيكا هنيجا عم بسمر خيركود لك الحمد لله ده بدنا وحملنا أنا جاك وحكو هيان أو حلقي كوفيد كل هذا كل واحد باله أرورية كل إكران إيو هانا إيو دوس بيبل أوغا إني واحد سودير دولار لكن سما قرني ما 50 بيجا عشاك بس يكون بدل الدولار لكن الحمد لله جفتي وخرح ده بدنا إيشو قال أنت ورك آخرنا يا صاحبي إنا thank you دين دعوة بس العجها بنفيت كويس السعودية الدقيقة لا جفتي أيضا بالعجتها بنفيت يدا وايس السعودان أو إن شاء الله بيشان أوغست هذا اللي قال بيش كحكتا أو محل ده هاي سبتمبر أي دولة إن يرسو دري دونتا لعقتهاسي waxaa loogu talagalay culayska dhanka biilasha inaad iskaga yara jibisaan marka insha Allah waa 299 baan spring min summer ka dawaab ujeeda waa iska yar caato oo waa uu sii socda kadibna 299 baan ayaa ku soo dhacayso de biilasha oo iskaga kala yara holiday xilligaas waa laga soo laabtay tan kalena waxay sii jirtaa wayba fogtaataa after winter ka ee 2024 lacagtaas ee dawladda ugu talagashay waxa weeye 8.3 milyan oo pound oo lacagta waddanka Britain lacagtani ma aha in la siinayo dadka oo qaata maxaa dadka dhibaataysan oo kaliya lacagtan waxay caameynaysaa dadka idil waddanka ku nool qofkaysan hore u soo dhicin haraadsado HMIC-du wacaya inaad entitled u tahay in kale intaan lacagta kale bilaabanin والدين سينيا دad badan ayaa wacdo waana loo soo diray laakiin problemku weyn waxa weeye haddii qof kale dalbanin mararka qaarkood lacagta dadku waxan waa big money way lacag badan maadaama ay tahay national insurance numberkaaga la iloobi kara haddii la iloobo HMIC-ga wacaysa option kaadaad galaysaa lacagtan ima soo gaarin waa lagu siinaya taasoo kaliya maaha asxaabi been idin sheegay local authority kasta oo waddankan ku yaal Ingiriiska local authority kasta waxay dhiibaan deeq ayay dhiibaan loogu talagalay xaaladan guracan ee waddankan Ingiriiska taagay maadaama xaaladan guracan lagu jiro oo runtii dhaqaalaha aad u liito local council kasta website-kooda markaad gasho waxaa ku qoran kaalmada cost living ku qoran way idinka aadan wax u akhrin way aadan website-yada u gelin way sirtan idin sheegay maalin walba aadan u dabagelin de aniga ugu soo noqoneen de aniga waa idin iftiiminaya de raadsada laakiin waxaan ku sheegayaa local authority-yada dad badan oo Asiaanka balaaga cadaanka kala duwan ay dawladdan kaalmo siisaa ilaa gaan covid-ka lagu jiro ilaa xilligan cost living-ka uu jiro local authority-yada lacag bay dhiibaan de caruur bad leedahay dadka caruurta la kaalmaa la siiyaa garden weyna qabtaa waa jiran weysa dhaqaal darab ku haysato war local authority qayb bay qabaan de la xiriira
دي حقينا رادسدا وانت ان ادين شيغي كلي دي حقينا رادسدا عرورتا لا هدلا او waxaad tiraahdan website kan oo local authority intaad gashaan waxaad eegtaan qaybta ay ku qoran tahay cost living markaa gashto option ayaa sii baxaya oo ku dhahaya fadlan detailskaaga halkan noogu buux waa lagu soo wacaya waa maxay problem ku haysto de gaaskan dhiibi waay oo korontadii aan dhiibi waay oo biilasha ayaa lagu leeyahay waxay ku leeyihiin haddii EDF lacag ay kugu leedahay noo soo gudbi account numberka detailskaaga anaga iyaga la xiriirayna kadibna lacag in badan ay ka dhiibay waa opportunity laakiin waxaan umad jiifta qof jiifana ma kicin kartid qof soo jeeda waxa la yiri qof soo jeeda lama kicin karo laakiin qof jiifa la soo kicin kara Soomaali hadaan nahay waan diganahay dhulkan laakiin maskaxdeena kuma qafilna waxaan la yiraahdaa integration ko warsan ummadan aan la noolnahay war maalin kasta waxa leeyahay dawladda markay budget samayso local authority waxa aan siinay inta soo milyan aan ugu tala galnay local community aad kamid tahay maadaama local community aad kamid tahay fadlan waa in aad xuquuqdiina aad raadsataan ana idin ma dhahay community raadsada you are personal wiilkaaga 13 jirka intaad website inta ka waawan iska daa 13 jirka intaad la fadhiisato hooyo page kan ifur wuu furaya cost living wuu furaya section ka caawinaada wuu galaya wuu ku qoraya don't call anyone else ha oo wicin qof kale dhis wiilkaaga ama gabadhaada guriga kugu jooga confidence ku hel inay hooyada gabadha hooyadeedu socod goos iyo wiilka labadaba laakiin dhibaatada weyn oo haysato waxa weeye wiilkii 25 jir 24 jir 23 jir 18 jir oo guriga jooga ayaa aabihi ama hooyada waxay raadinayaan another person qof kale walaal foomkii buuxe laguma buuxinayo wiilkaaga gabadha bar sida foomka loo buuxiyo arurta confidence gali safar baad gali kartaa waad geeriyoon kartaa arurtan maxaa kaga tagtay arurtan maxaad barta bariis iyo hilib iyo baasta mooye da arurtan maxaad kaga tagtay nothing markay geeri dhamaato kala carare meel wax ka bilaabo ma garanay because waa cunug adduunka oo dhan ka wada xiran so hooyo dhahay darbiyadu finally you will see wiilkii depression ku dhacay isla hadlay reality ilmaha indhaha loo furo indhaha arurta local authority sida u shaqeeyaan bara cunugaaga ha kala barto sida birch passportka oo dalbaleed hadii wax ay guriga ka qaldamaan inuu asaga waco on behalf of my mom inta console ka waco magaciga hebel la dhaha hooyada way ag fadhisa hooyadii dhiiba la leeyahay telefoonada wadanka waa aragteen telefoonka marka saas u wacdo oo qofku la joogo waxa leeyahay waxaan rabnaa qofka account holder hooyada ila joogto hooyo yes hooyo adig magaca miya yes magacaasa la yiraahdaa xaq uma leeyahay ana wiilkaaga ama gabadhaada la hadlay yes xaqan u leeyahay kadib qof wiilkaaga waa British Ingiriiska si fiican uga hadli karaa si wanaagsan oo qurux badan ayaa foomkaaga lagu buuxinay laakiin cunuga hadaad fududaysato waa tiraad war khayr laabahan wax ma buuxin karo iga baabiinay is very bad Somali aan u gudubno stage ka kale ee nolosha ah we have to be build our children wa ina carruurteena dhisna waxa keenay inay carruurta kale ay kaliitaan waa waalidka Soomaalida waayo we know put the confidence ma gelin just we know how to give the food how to do race how the PlayStation u soo galno iPhone ugu dambeeyay just waxaan ka dilnaa maskaxda umad dhan aad moodo in dhacaankooda hal meel laga soo wad qaaday de hooyada gurigan ka oynaysa oo Muqdisho ka timid hooyada Hargeysa ka timid oo gurigan ka oynaysa labada shay ay ku sheegan waxaad moodaa labadan hooyo inay hal meelba ku dhaleen ama ayba ku dhasheen waa same problem wiilkayga saas buu leeyahay kan saas buu leeyahay waa laba eray oo isku mid ah oo laba wiil oo Soomaali ah oo labada dhinac caalamka ka yimid ku wada hadlay معروفة قلداً مس والدك عروفة وحي أركان أي يكون أخمين عروفة وحي أركان أي يكون أخمين داودي العجهاسي إن شاء الله والدي بدونه أدي إبرال كنقدة كنتي وانا دي الشيء وحاوي مروة اللي بحاله بين قفك إنه جلروسة هذا قفك
haddii aad wax awoodid dhiib, haddaadan awoodin af macaan iyo sharaf ummad oo la dhaqan. sidoo kale waxyaabahan khayr kale aan sheegayno oo xaqaad u leedihiin, waxa xaqa u leedihiin weligiin ha ka xishoonin. xuquuqda leedihiin waxa weeye waxa ay dowladda idin ogolaato oo aan gorgortan lahayn, oo aadan u baahnin community man ama community Soomaali. wiilkaada iyo gabadhaada ku xalin kara. lacagahan kale oo dadka lagu caawinayo fadlan website-yada local authority aad degantiin. haddaad degan tahay Newham, haddaad tahay Brent, haddaad tahay Redbridge, haddaad tahay Walthamstow, all website-yadooda waxay qabaan cost living. yara eeg confidence-na gabadhaada wiilkaaga geli, horna u soco. bismillah. liftiyada ugu quruxda badnaa runtii soo gaaraya ka mid tahay. aad baan ugu mahad celinayaa qofka walaalka runtii isoo gudbiyey ama isoo gudbisay. waayo runtii markaad meelahan oo kale aad ka qiilinaysa dad qalbi fiican baa jira, dad aad u qalbi furan. markuu giftigan isoo gaarayay quruxda badan asxaabay, ma filanaynin in sawirkayga oo magacaygu ku qoran koobka biyaha marka hore wuxuu ugu dili jiray markasta dhaq. waa la socotaa meesha waxaa la dhahay Soomaalidu waxay dhihi jireen inta badan ragga markay meelaha ku bataan koobka ma dhaqan. waa cabsiyaa lagu jirto wadankooda covid adduunyo markuu noqdo koobkaad biyaha ku shubinayso ana iska dhaqdaa isku haaleen goobaha la tagay. laakiin hadda koob aniga aan la iga taawinayno sawirkayga ku dhagan ayaa soo qaata mar walba bismillaah dhaha. laakiin dadka qaarkood bidix ay dhahaan, laakiin bidix ma ahan. qof walaal ah oo runtii dadka daawanaya oo hadda ku jira ayaa runtii uu iga soo gaaray. aad baan kaga mahad celinayaa. waxayna ka mid tahay waxyaabaha quruxda badan oo qofka markuu wariye ah sometimes aan aad ugu farxano inaan leenahay dad. tan labaad aan filan waxa weeye qofka aad dadka ugu mahad celinaya markaan yar xanuunsada waa soo qeylay dadka kaniini ku baadhay waxaan war asxaab alayhi soo duceeyay waa xanuunsanay. waxyaabahaas oo idil waa waxyaabaha markasta courage ama geesinimo ay gelinayaan dhahay warniyaho inta aan wararka aadan ka fadhiisanay ka hor dad ahlu khayr badan kasii baro goobta. dabadii waxaan u gudbiyaa dhanka arrimaha bulshada. arrimaha bulshada inta badan waa qaybta ugu xasaasisan, waa qaybta ugu cabsida badan marka aan ka hadlayo. sababtu wax kale maaha, waxaan taabtaa waxyaabo badan oo dadka Soomaalidu ay jecleen in la taabto. waayo qofka bini'aadanka ah marba haddii waxyaabaha qaarkood uu qabatimo lagama taabto. sanado badan ka hor ayaa anigoo bas raacaya ayaa waxaa soo koray nin Talyaani oo Napolitana. markaasuu anigoo labisan arko markaasuu yiri amico haye, wuxuu yiri baskan adiga ka bililaqayso oo micnihiisu yahay tuugo iyo haystaanik. inta badan tuugada Talyaaniga labis aad qurux badan intay soo gashtaan oo jaakad halkaas ay ku soo turtaan ayuu gacantan hoos u shaqeynaya oo gacanta hoos u jeeda dusha jaakadii u saaran tayba u xiran sideedoo kale halkaas intuu gacanta geliyo markaasuu qof kasta mise boorsa dhacaya mise lacag qaata. wax weyn ay la noqotay markuu yiri amico wuxuu yiri baskan adaan kaaga dad bulmankan adaan kaaga dagooda barkaan wuxuu yiri macallin weyn aad tahay. how do you know maalin kastan ku arka meeshan meel jaamacada meesha ku taal raashin laga soo qaado raashinkay adduunkay meesha ku taga. no wuxuu yiri adiga kan iskaga baashaal kan kala soo socda kan ku xiga anigana wuxuu yiri operation kay ka wadanaya. marka waxaan yiri tuug intuusan tuug ku dhino tuug ku yiraahdaa. arrimaha qaarkood marka aad ka hadlayso dad badan ayay saameyn ku tahay, laakiin sidee doontaba ahaato waxa weeye runta lagama gabado. waxaan ku soo qaadanaya laba shay oo runtii Soomaalideenu aad muhiim ugu tahay. number 1 waxa weeye waxa la yiraahdo prank. aad moodo inuu Soomaalidu dhalinyaradoodu uu ku sii kordhayo. daqiiqada ka hor ayaa waxaan TikTok aan ka daawaday. sababtu aan u soo qaatay waatan TikTok ayaa waxaan ka daawaday gabar Soomaali oo oynaysa kadib markii wariyaal qaldan waxa weeye qofka wariyaha oo dadka xumaanta u dalooliya ama tusa. wariye qaldan ayaa helay gabadhii wuxuu ku yiri war waxaan ku weydiinayaa saaxiib ma leedahay? markaasay tiri yes saaxiib aan leeyahay. saaxiibkaada see kula dhaqantaa? markaasa waxay ku leedahay saaxiibkayga waa daanyar. soo daanyar ku noqday wuxuu ku noqday markasta lacag baan weydiiyaa oo islama joogo lacagtaasina si fudud ugu soo dira. waa prank. wiilka wariyaha wuxuu gabadha ku leeyahay marka daanyarkaaga ma wici karnaa?
markaasaa waxay leedahay yes daanyarkayga waa wici karta ama wacne maxaad leedahay ee daanyarka waxaan leeyahay 200 ii soo dir runtii ana wariyahaas waxaan dhahay markaa waa wariye qaldan waayo waa wariye xumaan sameynaya ilaah subxaanahu wa tacaala ma jecla dadka xumaanta bilaaba taleefankiyaa la garaacaya codkaana loo furaya markuu dhaco السلام عليكم وعليكم السلام ما يصدف سنيان هاي دايرك يورنا إلى بس إذا ما دام كاميرا لقدوه دايرك يورن إلى أمريكيس أمر بان السعودية نينك ديكتي سوحة كل عاية دايرك مركز حوليه وحنك ويدنا ما حد ولا جدا دايرك يجي متيدا مركز أنا دايرك علمي سبحان الله أنا أذيك فرنا أنا وحتى علان الدنيا وبعنا الله بخل دانير يصدر إيادا نين كان وريها وحي إسكاقي لسي سامركا وحيابيه اللو هدلي وحيابيه مركاسي لير وإنا تكو هذا الشيء مادام الداير نماذا يكو أتكيسة نينكي وعراضي مرتوحو يرلعكو مصدرين لكن وحا كو شاغي يوضي فانت آدم ونحي فيديو كليبان كهاي عيب تسوما يدك الأحتاج أنا ربين دي الشيء فيديو كليبان كهاي وان ku fadaxeenay wiilkii wariyaha soo dhaxgalay sheekada markaas wuxuu leeyahay warniyo sheekada salmeen dhigayso yiraahdo waxa meesha ku dhaxkeen yaani hebel ah adiga balaankan wada tameen wuxuu yiri $2,500 hadaysan la isoo shoobin ay bid on social network noloshan heerka samaraysan brank وقلدية وريها سيد قلدو سمية وقلدية قبل الصوماليات ويقلدنتها ويلك انتو وحن قبل كو سمية او هدانا كو هنجبا السوق كو سوق قلنا يا وقلدية وأدوية وذا قلدن أريمها برانك آدها لسكاقي إلالي أرنتان برانك إيرا هدان أما سورادا لسكا دوبايا كليبيادا لسكا دوبايا أو فضيحة the end of the فضيحة سنلوي هذا 5,000 إيسو شوب وأجينيس دلو والشرع كفقوي رجع كل رقمانة الدهر اليوكي تشروع يجر ويل سوماليا ده الله يروح يجري قفك كوكع فضلا يوسو حريرة هدي اللي سمعتها شرع وحاجر يجري ودك اسكودلان لو دقن قلي حيل اد افق كنا سابسن دادك بلاك مايلك دادك كانوا كسميناي waxaan u soo qaatay wax kalma maadaama ay jiraan rag Soomaali cilmi bartay saysan tidaasoo kale aysan gabar Soomaalisan ugu dhicin inta klib laga duubo mis haqabo mis heshiis ala lahaatay harana in la sharciyeeyo waayo haddii kan aan laga qabanin bulshada kuwa kale ayuu fidnaynaya fidnada si looga hortago waa in gacanta iyo sharciga laga bilaabo haatan banaanka la soo dhigaa ninkii Soomaaliyeed ama gabadhii Soomaaliyeed iyada naftigeeda sidaas oo kale kuba iska gaangaan u jiro clip ka duubta de adigoo qaawan ama iyadoo qaaban laga soo duubo waa waxyaabaha ceebta subhanallah waa in la dacwadeeyo Soomaalidan ay arkaan jaraa'idyadan ku arkaan in sharciga wadankan Ingiriiska aan ku noolnahay uu shaqeynay gumaysi waa laga baxay gabar kasta oo Soomaaliyeed de waxaad cantufta u laqaysay oo dib hadduu ku haysto waxa sharciga ah waa inaad xuquuqdeena aad raadsataan daas dalow waxa la gaaray xilligii aad garabka aad haysateen laga bax xilliga aad aamusanaan jirteen oo marada gadaasheeda aad ka oy jirteen datamis oda hal guulaysto gabdhaha Soomaaliyeedna guulaystaan naxariistiina iyo wanaagiina iyo sharaftiina iyo ixtiraamkiina iyo kalsoonida aad dadka u qaadaysan ayaa intaan bakeensatay Sooma dekii garan waaye dawaala garisiin waxaan kusoo gabagabeynayaa asxaabi qayb aad u yar guurka dhalinyarada Soomaaliyeed muddooyinkii dambe waxaad moodaa in dadka ajnabiga uu ku sii kordhayo waa maxay faa'iidada ay leedahay in ajnabiga la guursado waa maxay qasaarada ay leedahay
وقرنتي قسارة أيا صهر مرنا فائدة هاي دنبيسو وقرنتي قسارة وين أو إلا هاي وحاول كالجركي أو كلفو sometimes laga yaabo diintii inay kala fogtahay aad bay u adag tahay gabar wiil in uu guursado gabar kristiyaana ama diimaha kala haysata laakiinse ay aad iyo aad u adag tahay in gabadhaasi sida la rabay oo toosado sida Ilaahay toosinin inta badan wiilasha waxa qalda inanta dheer oo timaha balondada leh oo indhaha buluuga naftigiisa bacyaro la isku galiya jiro waana la qaldaay بعير إيش لقشته أيها قلنا بلوغ على قاعد سالم هذا نيسان بريت هذا قشته سوى بلوغ وصباحي نم ذو بلوغ قشته أعوذ بالله سوء إله بأوك وحي جعلي مركان نوع عاسي أو بابي فيلم هذا الله السوقية كجرو ده إنن لهبي أي يحك رأس الجامعة ذا وذا ده إنن تدربتد أو قبل عدان تعد تمه بالون كالكنسان اللي هذا ماذا مشاغل كلر كاموي انت كلا اسكي ميدين هاوين لكن تن ugu wanaagsan inaad baguursato waa in Soomaaliyeed hadaad aabato lagu keen qof ajnabi ah waa in aad wiilkaada si saraaxa oo qurux badan oo colaad leh ka dhaadhicisa dhibaatada ajnabiga leeyahay imma sawiil oo Soomaaliyeed oo gabdha cadaan guursada caruurtooda lagala tagay waa ay badayeen de qosolkan ibodboodkan iyo labada sitimaan iyo sanadka wuu dhamaada de gabadha Soomaaliyeed waa gabar ninkeeda u ceeb qarisa gabadha Soomaaliyeed baahidaada idar la'aantaada iyo dhibaatadaada dib ku ceeb qarnaysa gabadha Soomaaliyeed inay mashaqaysta tahay oo caagisla tahay oo aad meel kasta aad ku fiicnayn de waa ku ceeb qarnaysa xitaa haddii ragnimadaada ay caata ay tahay inanta Soomaaliyeed way iska qarsanaysaa oo iska aamusaysa waxay leedahay kan de Ilaahay baa ku siiyay iska qarsa laakiin sanaagta cadaanka itamadow de kayel mis I'm sorry kulada niyo nimadan kuma fiicnad gad lost ajslo baata iga bax ma qabeysata baata iga bax nin sheer badan baata iga baxay kulada wala diin wala dhaqan wax ali ma bala xuduud ma la qof ajnabi waxa soo haratan dadka muslimku hadana la guursanay dhaqan ma la isku dhaqan ma bani de wiilka iyo gabadha marka la is doonto waxaan leenahay dhaqan aad qurux badan oo wiilka iyo gabadha wallahi alcadiim hadii waqooyi gabadha ka soo jeedo oo wiilkana jubbada hoose tan ugu hoosay xitaa uu ka soo jeedo waxaan aaminsanahay odayga reer waqooyiga dhaqanka ah iyo odayga dhaqanka koonfurta tan ugu dambeeya ka yimid markay is hoos fadhiistaan inay wax gorfeen karaan af Soomaali iyagoo ku wada hadlay iyagoo isticmaalay erayada ugu quruxda badan ee wax la isku dhaafsado waa Suuriyadii ويردي وقباتي وشرفتي والله Soomaaliya la wadiya la dhulka balaaran laakiin saasay taa waxa la isku imaanaya hal meel oo qurux badan oo lagu hadlayo afka ah idin la hadlayo oo Soomaaliga quruxda badan inanta waa lagu siinaya waa lagu saacidaya waa lagu sharfaya gabadhaas labada reer ayaa u dhaxaysa waxa weeye ma sha Allah qof mediator ah oo u dhaxaysa labada famil laakiinse gabar urdur ku hadlaysa baabaji maamaji haysan oo dhankooda uu wacad iyo wiil Soomaaliyeed iska maskiin oo reality hadii sheego inuu good environment ku dhashay iyo baabaji maamaji gabadhooda isma keenayaan afkooda ku hadlayaan dhaqankooda ku hadlayaan wax walba laga dhaadhicinay every side of their own life ayaa soconay because waa weyn baawarka di guriga gudihiisa la eego gabadha talenta halkaas waxa ka baxay marka wiil Soomaaliyeed ma jiro marka fadlan hablihiina haday guursanayaan reer badan oo Soomaali waxa jiro intii ajnabi galeen waa ay ku dhex jabeen because position ay ka soo noqdaan ma hayaan position ay ka soo noqdaan ma hayaan waa ay jabeen tii koowaada ajnabi guursaday saaxiibkiisa hasan soo dhex kala tii kale reerku ka guursaday isla kubi kale dhinac ka jira kuwa kala guursaday adiga uun waala bil la qeystay reeray waxa bil la qeystay umad aan la garanaynin dhaqankooda iyo diinta haystaan tii la soo dhex gashay marka ama gabadhii cadaan oo la keenana
horta habeenka ugu horay arooska la qaabina diraca loo gelina filan clip ugu dambeeyay ilaa mar dambe ima tusay ayaa waxaan arkay gabar cadaan oo la guursado laakiin gabadha inta loo geliyay dirac ma dirac ay ceshan kartaa dirac laftii shaqo u baahan yahay dirac shalmadii u baahan yahay awrada lagu ilaashanay teeda kala dhar wanaagsan inta loo soo geliyo at least waa yara asturan tahay waa gabadhii cadaanka eedo reerka muslimka soo dhaxgaleen oo Soomaaliyeed iyaga dhuqsiye waaba loo wada gabadhii dhanaaba la arko waa gabar cadaan de gabadha hadaba yar madooda dirac iidan iska yar madood wixii baaba isla yar madooba adduunyo wada madoob de inan dhal oo cad oo ilaahay cadaanta u dhaliya waxa loo geliyay dirac la yiri warkaalay marka daawada calada ayaga naftooda cadaanka waxa la yaabeen cidda muslimka aad soo dhaxgashay ama xasida idin qaawanayaan marka guurka sida jeedin marka guurka Soomaaliyeed ee dhalinyarada aad buu qaldamay xitaa hadaad eegto inaga dhaxdeena Soomaalida ayaad moodaa inaan dhaqanadii kala qaadan in gabadha dhar cad loo geliyo garbihii loo soo qaawiyo hablihii markaasi la socday iyagana la qaawiyo wa hablihii 30 sano 20 sano loo soo xijaabayay mi absidi rabbi ayaa meesha baqa marka in aan ku dhaxmilanno ummadaha aan la noolnahay aad wax yar baa noo haray waxa la yiri Turkiga ayaa muddo 50 sano ilaa 60 sano ka waxay ahaayeen muslim aad u fiican oo Yurubta soo galay laakiin hadda ma aragtaa Turkiga waxay ku dhaxmilmeen gaaladii waayo waxa lagu leeyahay shaqada iqaamrada isma laha heerkaas oo socona way soo socotaa Soomaaliya waayo in ayaga ka yar waqti ayaga ka yar isku bedeli karaan ka yar anaga isku bedelnay Soomaaliya hadaan waxa weeye dhaqankoodii qaalanay Farantiga la gashana aan Farantiga ugu jiro Farantiyadan la soo galnay muslimka ma qabaan toortada afka la isku gubanayo ma qabno dharkan cad oo qaawanaanta anaga ma qabno waa dhaqan kale minas waxaan u sii soconaa dhanka igaaladii iyo wixii waxyaabo badan soo gabar uur leh oo caloosheed inta banaanka la soo dhigo ma yellow iyo pink la soo qaatamay mise pinky and blue wax caloosheeda ku jiro waa meeshii abaayada aan sameeysan jirno ilaahay loo toog jiro ilaa foosha Allah fuday minas waxyaabahaas oo idil marka aad fiirso waxa aad dareemaysaa in guurkeena iyo guryaheena already dabkii gaalada u soo galay ayaga naga edeb badan somewhere somehow hada fiiris aroosyadooda waqti dheer ay soo dhameystaan anaga keenay midnaad wixii ka dambe ilaa nalka la damiyo la warkala carar meesha la taagay iyaga taangay badheel anaga hadaba taana dheel kasta inta gacanta lagu wareeyo gabar Soomaaliya ku wareeganaysa saaxiibo aad ku weydinay gabar Soomaali law marka daawir soo suuxay dig because wiligeed ma wareegan waxaan noo soo baxay DJ oo ilaahay ka baqayno aadan dheheen ninkan janno iyo naar maba kala garanay marka guurka laabe guurka ee dhalinyarada Soomaaliyeed waalidow intaad wax ka dhigi kartaan kada caruurtiina kaga diga ajnabiga xitaa muslaaduya ka digi ha ku xumaato gabar bay dhaba laga keen ama jawhar laga keen ama Hargeysa laga keen ama meel kasta laga keen oo guuriya caruurtiina dawa afkiina gabadhan ka timid Soomaaliya haday caruurta daf intay siiso ay waxay geynaysaa barbarayas barbar waa ka daba tagaani aniga koofur ka yimid haday gabadha caruurta barbargiisa wallahi waan taga barbar af Soomaaliya lagu hadlo nobody can stop tulkeeda aan taga waxaan war gabadha caruura laga soo xada laakiin inta daf ka dhaho Slovenia Romania hadaan tago waa li soo dilay hala ku balaga noo yimid hala toogto unuga gabadha Sloveniyaanka ama Romaniyaanka ay dhasho maalintaad ka daba tagtid oo Budapest dhulkaas aad tagto waa lagu soo toogan hadaba la soo Hargeysa iyo Kismaayo iyo dhulkaas hadii la tago tal qaraabaan leeyahay waa la raadinaya war gabadha intay joogtaa gabadha waxay joogtaa magaaladaas ay joogtaa Hargeysa ay joogtaa Jowhar ay joogtaa waa sabra muddo kadib sa u socdo falay Dubai aan qaadan Hargeysanka daga boosaasan taga waxaan ila meesha Boorame war caruurteeda raadinaya hal iraad hotelka dag talka inta shaahada waxooda siisat fadhiisay waxa dhahday caruurta laga soo qaado marka gabadha Romaniyada aad ka guursatay wallahi ma doonan kartid taas way tan haatan haysata rag badan ay ku dhacday oo gabdha ajnabi ka dhalay caruurtana aan gacanta ku haynin marka fadlan awood waalidkiisaas ma laha laakiin aragtiyo idin sii waan qurux badan
ابو انا ولي ود ابو واي نعبتها ريسيست ما تها اجنبي نو ام نو ريسيست لك ابو هذا بس انكو شيغان waxaan ku sheegaya caawa markay reer ii yimaadaan Soomaaliyeed ay yiraahdaan aad adig ii keento gabadhaas aan u baahanahay tiraahdo aniga reerkaasi waxaan u wada sheekeysan karnaa si xuduud la'aan ah laakiin waxa ii keenta baabiji ama maamiji maamiji aan labadaas erebisa marka ka saabo marka la duceynayo meelahaas ka maqla iyo ereyo oo ducada ku saabsan because masaajida anaga inta badan qabnay ducada urduga haba xana sen communication sameynayna sen u kaftami karnaa dadku waa is dhaxgalaan maxaan u sheega maxaad u sheegtaa baabi you speak English waxaan ingiriiska abu caatada mar oo mar daciif u gaaray qofku markuu caata wax uu ka yahay muddo markaa jiidad meel saad diib ma sii gaari kartid waa qof madoob oo liiri dabaalo mamni qof madoob oo dabaalna oo koob qaadmaad aragteen deesaaso kale aad bay ugu noqonaysaa wuu khasle waxaan at least hadaad ina Soomaali keento waa la gorgortamaya guurkii lagu gorgortamaya habkii nolosha soo wada laheedeen hadaad isdagaashaan waxa dhici karta in idin xallino laakiin siyaad ku xalisayaan oo xalisan هذا كره هذا الشيء ويل reer koonfur ah ayaa wuxuu guursaday gabar Bakistaaniya galab kamid ah waxa guriga wada yimid odaygii waa baabiji imaamiji waa hooyadii ana idin barasif aan iga bar kistas la iga barta waxa kale oo yimid gabadhu qabay iyo wiil adig shan qofood baaburka markay guriga soo galeen kursiga dheer reer baabiji fadhiista reer baabiji hal kursi dheer fadhiista baabkeenan hal dhinac fadhiisan reer koonfur sheekadooda iska gala baasaas waa bankan waa maamjiya qaalis maamjiya waxay tir maxaa ku hadloosin we speak Somali language no it's not good it's not right what is not right this is our language waa ku hadleena may anaga idla joon you have to speak English idinka urdu ku hadloosin maxaa fear brain wash kaliya lagu sameeyay meesha soo horeysa waxa loo leeyahay adiga Soomaali ku hadlin ana urdu ku hadlin oo ku xamanayna raashinkeena wax ka sheegay hada rabtid we never know we have to speak Somali laakiin hada Soomaali ku hadlays aniga aan ku hadlay wax dhib ma qabno marka dhibaatooyinka sanaysta war Soomaaliye hooyo badana ooynaysa aaba badana calool xumo haysa way ubadkii de kuma dhageysanayaan laakiin suwaanada ku furan وحسويدين محمد سويدير سبب أصحابي عادي هذا ما سنتين إله سبحانه وتعالى وحنا قبري هرتي إنه إلهي نحفظه إله سبحانه وتعالى وحنا قبري رجل الصومال عادي يستي إن كل بيدك قاعد حبلها الداء دير الصوماليات مس لولك هالجوجان مس كيني هالجوجان مس لوينا الصومالي الملكس الجوجان إله سبحانه وتعالى رجع حبلها كقبته hablaha baahidooda looga faa'iideysana Ilaahay subhanahu wa ta'ala raggaas ka qabta rag Soomaaliyeed waxay noqdeen rag bahal ah bahalna wehel ma galo gabadhu maanta saacido ayuu doonayaa biritin wax ka dhamaysto gabadhu maanta walaalo u dhaho biritu wuxuu yiraahdaa walaali inuu ka dabadho doonaya subhanallah raggeena Soomaaliyeed Ilaahay subhanahu wa ta'ala idin barakay de gabdhaha Soomaaliyeed sharfa Ilaahay baa idin sharfay gurihiin ayaa idin barakoobay ilaahay rag wuxuu naga qabto ila caruurteen awlaad saalaha ka dhigo ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ku baraya reer kasta Soomaali ubadku guriga u jooga inay confidence ku qabaan aysan u baahanin oday Soomaaliyeed oo Soomaali community leh aysan u baahanin hooyo u ducay wiilkaada ama gabadhaada foomkaadana ayaga ku buuxiyaan wallahi alcadiim next year this time hadaan noolahay adinka nooshiin waad arkaysaa faa'iidada caruurta إليهن مرك أيهود هذا وحول بقوة دمية إله سبحانه وتعالى وحنك برينا أنت لمتي أنا إله ونحرست وقبرية إله إنه واسعيه إله سبحانه وتعالى وحنك برينا أنت حنون سنة سنة وحنون كقاضي إله سبحانه وتعالى وحنك برينا جوابها أي علاد أي كجرته أو نبضين تنا أي كجرته أي أضياش أي دنيا نبض أي قيرك أي وناج أي إني سنديج وسندين أضياش سينو إله سبحانه وتعالى أسقره nabadda iyo qeyrka iyo wanaaga ay raadinayaan dadku calaad wadana ilaahay subhanahu wa ta'ala laga baqo oo yawm al-qiyamah walidi weydinaya yawm al-yaqum hisab ajr
lagu weydiinayo waxa aad galabsatay laakiin haddaad tahay imaam alcaadil waxaad ka mid tahay 7 qofood oo naarta ka nasan doona 7 yudilluhum ilaa dilla yawm alqiyaama ayaad ka mid tahay marka fadlan khayrka wanaagan ku dadaalno anigoo Saalim Dhoore inta asxaabta sharafta ee qiimaha leh ee ila daawanaysa aad baa mahadsantihiin waxaan isku dhaafnaa oo bilaa tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.